waliba geeka mas'uuliyiinta wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo qowdana shir jaraa'id oo markaas ku saareen awaamiir kala duwan waliba shirka jaraa'id qayb galaya agaasimaha wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cali Isaaqa walibana markaas iyo ku saarnay shirka jaraa'id awaamiir kala duwan oo ka eedan nabad guurka dhartiga waxyaabo sabab kor iyo khataro kor nadaafada deegaanka taasoo markaas ay wasaaradda mamnuucday ka ganacsado ka bacyo la isticmaalo deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo hay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya og dhammaan wasaaradaha bahda wadaagta la ah wasaaradda bi'ada iyo duurjoogta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya og dhammaan hay'adaha dawliga ah iyo kuwan dawliga ahayn ee ku howlan ilaalinta iyo horumarinta deegaanka iyo duurjoogta og taliska ciidanka booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya og xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ujeedo soo saaris wareegto awaamiir fulneed wasaaradda bi'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayadoo ka duuleysa waajibaadkeeda shaqo ee dastuuriga ah oo ay mas'uul uga tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayadoo la siinayo ahmiyad gaar ahaaneed ilaalinta deegaanka ama bi'ada iyo hirgelinta shuruucda dhowraysa bi'ada iyo duurjoogta isla markaana fududeynaysa meelmarinta xeerka maareynta deegaanka iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wasaaraddu markay tixgelisay qodobka 45aad ee dastuurka kumulgaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo qodobka 85aad ee dastuurka kumulgaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya si cad u qeexaya ilaalinta iyo horumarinta deegaanka wasaaraddu markay u cadaatay in la garab maray nidaamka sharciyeed ee ilaalinta deegaanka ama bi'ada baaritaan dheer kadib wasaaraddu waxay go'aansatay in laga bilaabo maanta oo ah khamiis taariikhduna ay tahay 28 bisha 3 sanadka 2019 in la dhaqan geliyo shuruucda iyo awaamirta hoos quxsan number 2 in la joojiyo xaalufinta ba'an ee lagu hayo dhirta gaar ahaan deegaanada ay maamusho dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya taasoo saameyn ba'an oo nabad guur ah ku yeelanaysa deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya number 2 wasaaraddu waxay ogeysiinaysaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan 18 degmo ee koonfur galbeed Soomaaliya in aysan ka qayb qaadanaynin waxyaabaha deegaanka dhibaateyn kara sida jarista dhuxusha qashinka oo la daadiyo lagu daadiyo wadooyinka suuqyada iyo xaafadaha number 3 wasaaraddu waxay ogeysiinaysaa dhammaan ganacsatada ku sugan koonfur galbeed Soomaaliya in la joojiyay isticmaalka ka ganacsiga bacaha oo dhan 3 Abriil wixii ka dambeeya cidii lagu arko isticmaalka ama ka ganacsiga baco waxay muteysanaysaa talaabo sharciga waafaqsan number 4 ayadoo laga hortagayo saameynta ama raadreebka deegaanka soo gaari karta waxaa la ogeysiinayaa dhammaan hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba in aan la fulin karin wax mashruuc ah ilaa qofka ama shirkadda fulinaysa ay haysato caddeyn ama fasax ah waxyaabaha afka qalaad lagu dhahan waxaa ka mid ah clearance certificate oo wasaaradda bi'ada iyo duurjoogta ay siisay number 5 sidaas darteed wasaaradda bi'ada iyo duurjoogta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxay ku wargelinaysaa dhammaan cid kasta ay qusayso wareegtadan awaamirta ah inay sidaa ula socdaan isla markaana ay fuliyaan una hoggaansamaan awaamirta wasaaradda bi'ada iyo duurjoogta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wabillahi tawfiiq wada shaqeyn wacan wasiirka wasaaradda bi'ada duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cali Isaaq Cumar warqadan saxiixay wasiirka wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cali Isaaq iyo waliba bulshooyinka ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya oo iskala dardaarmay inta markaas ay ka dadaalana ilaaliyo nadaafada deegaanka iyo inta markaas ay la dagaalamaan waxyaabo sabab kor nabad guurka dhirta geek meelmay baan fadhinay xafiiskan aan fadhinay inuu تأكيدا أن ما يلرهاي إن شاغنا أوامر تقبضي
wasaaradda bey'adda iyo duurjoogta un oo hadda isla jarna isla markan dhankan oo dhanka midig oo fadhiya higa oo wasiir ku-xigeenka ay lankaasna wasaaradda agaasimisha ay saas dartiya wayba faday inay ana adkaaye nidaamka warqadan qornayti ardayn walsin akhri walsin dulmari inay la adkaay saas sababtoo ah wayba deegaanka iyo lagu hadalay deegaankana wayba ku mas'uula dhamaanteen lan khaasatan cid gooni ah ku mas'uula ma jirto shacabka iyo dadka dawladda ka jara iyo dadka shacabka qaybo shal duwan bulshada oo ka dhagamaas dawlad goboleedka koonfur galbeed dhulshe ba mas'uuliyadda ku wada saaranta ma awaamiir taabati awaamiir oo si kala gooni leeyahay ma awaamiir hubati wasaaradda taasi oo adkeeyaas silin ilaaliye deegaanka uu ka noolna kasi kortan deegaanka uu ka noolna inay meel raay muhiim ay in nadiifadiis iyo meel raay iyo jaridda dhuxusho ay geedo la jaraw dhibaato badan inshaana korta xasuusansan walow hadda ka jarna isla waqtigan ka jarna gugeynina bilaawdi deertinina bilaawti roob horleenin kooyan saas dartiya hadda kasi kortan hadii qashinka ama nadaafada leen ilaalin way badalaa koraha shuban biyot oo linka soo acute water diarrhea waa shuban biyotkaas oo dalaaca kor way badan korseedo kore dhibaatadaas andin inay nadaafada la ilaaliyo ciyaalka nadaafada la ilaaliyo madii masquulo galan gacmo dhaqdan liin dhaga gacmo maray saabuun ka dhiga dambis la ka dhiga sababtoo ah waqtiga hadda la ka jar xiliyadan oo kale wayba ogaadi jirteen sidoo hore sanadii hadda dhaafan oo kale anda laacin shuban biyooda badan oo ku dilaacin dad badan saameeyeen oo kumid bulshooyinta dawlad goboleedka koonfur galbeed ka dhamadaan mise bulsho meerahay ka dhibaatooyin saas dartiya suliin ku hortaga wayba faraanahay dhamaan dadweynaha ka nool dawlad goboleedka koonfur galbeed eriyada xukuumadda maamulaasa inay ilaaliyaan nadaafadiyo deegaansho inay ilaaliyaan geedo oo liinjarna inay ilaaliyaan meel raay ku ganacsiga bacooyinka walaa oo ka daromo bacyaalkan hobla ganacsada bacyaalkan way booha hatta even hadii geeka dhiida dhulka ka dhiida way booha oo aasanta ma wal oo kamila ma carada ma way booha noolad boqol sano hadda ku baatay nooladaas dhulka hadii guud qashin alin soo beel ar nooladaas madamadaas ama xoolaha way ba aama koran dameera irinka looda xoolaha ama hoboola amagna ololadan fadhidaas markin xoolaha ka dhamaado koran Cabdullaahi Maxamuud Saa Cabdullaahi Cafaani telefishinka iyo raadiyaha dawlad goboleedka koonfur galbeed magaalada Baydhabo.